jaaliyadda Somaliland ee dalka UK ayaa kulan soo dhaweyn ah u qabatay xubno ka tirsan wafdigii Somaliland ka socday ee ka qayb galay barnaamijka Somali Week Festival. xubnahaas wafdiga waxaa ka mid ahaa xildhibaan Maxamed Abiib, xildhibaan Axmed Khaliif iyo agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Somaliland Mudane Weji. waxaana kulankani ka soo qayb galay safiirka Somaliland u fadhiya dalkaasi UK iyo jaaliyadda Somaliland ee dalkaas ranka Somaliland. ugu hore waxa kulankaasi ka hadlay iyo ujeedkiisaba ka warbixiyay gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalkaasi UK waxaanu yiri aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhamaantiinba sida fiican ee caawa xafladan aynu ku soo dhaweynayno martidan inooga timi dalkeenii hooyo aynu caawa u wada sharafnay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. halkan waxaynala joogaa 4 qof oo inagu qaaliya oo inooga yimi dalkeenii hooyo. sharafta aynooga leeyihiin waxa weeye markasta oo cid inoo timaado inaga oo wada jira oo wada mid ah inaynu soo dhaweyno cid kasta oo inooga timaado dalkeenii hooyo. caawa halkan waxa fadhiya waa dadkii miidda ahaa ee Somaliland, xisbiyadeena qaranka jooga, Somaliland activistki ba jooga, hablaheeni haweenkeeni ba jooga, safiirkeeni Somaliland ee dalka UK ba nala jooga Mudane Cabdi Cabdilaahi oo mar kasta oo hawl arin Somaliland joogto hormoodka ah. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa labada suldaanka iyo ugaaska oo ayaguna mar kasta arrimaha Somaliland iyo xafladaha Somaliland aan nagala maqnayn. caawa kelmadeedu waxa weeye hal mid. waxaan leeyahay marka hore martida ku soo dhawaada UK gacmo furan ku soo dhawaada. marka labaad waxaan doonayaa inaan idin sheego xafladeennani caawa waa xaflad soo dhaweyna siyaasad iyo kuma jirno barnaamijyadaasi. waxaynu halkan u nimo kaleena la cashayno soo dhaweyno aynu dhageysano xildhibaanadeena labadeena xildhibaan Master Weji iyo inanteena Nuura aynu dhageysano inaan wixii talo iyo tusaale ah iyo su'aalana aynu weydiin karno. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore waxa mahad Ilaahay iska leh inagoo nabad qabna caafimaad qabna faraxsan oo dalkeenina lagu wanaagsan yahay nimco ka daaday inayna caawa halkan isugu nimaadno. talabaad SSUK oo hoggaan ka yahay Nuur Xuseen Xaaji Xasan iyo gudiyadiisa ka soo shaqeeyay qabanqaabadan mar walbana inoo sameeyo taasoo kale inayna sacab ka u turno weeyo aad iyo aad bay u mahadsan. mar labaad waxaan soo dhaweynayaa martida sharafta leh saaxiibkay oo aanu muddo dheer isnaqiinay Maxamed Xasan Weji oo aanu macallimiin xataa isku ahayn, Axmed Jaamac Saalax Axmed oo aabbihiina aanu isku macallimiin aanu ahayn oo ninkaana isku asaayeen, Abiib Maxamed Yuusuf oo isagana haddaanu iswaraysano kolley meeluuna ama aabbihii ama walaalkii aanu ku kulmi doono ayaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa. xafladani waan uga mahad celinaynaa cid kastoo soo qabanqaabisay SSUK. markaa waxaan ku baaqayaa midnimo wanaagsan. waxaan diyaar u nahay cid kasta oo jecelna waxna weydiiso inaadna weydiin karto ama shakhsiyan cid su'aalka baqameeyay ay dee anaa soo doontay halka mushkiladda waddanka haystaan waxaa kow ka qof mas'uul oo xil haya oo aan rabin in la xisaabtamo oo aan rabin in wax la weydiiyo. marka laakiin aad diiday in wax la weydiiyo macnaheedu maxay tahay waxbaad qaldaysaa weeydi. marka insha Allah noo soo duceeya oo in la joognaa midnimo aan ku baaqayaa insha Allah ta'ala. wanaagsan reer UK waxaan marka hore u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo ogolaaday inaan isku nimaadno. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa SSUK oo kulankan inoo sameeyay caawa sida isugu yeedhaan dadka reer Somaliland iyo dabcan si ay anaga noo soo dhaweeyaan. waxaa kaloo u mahadcelinayaa safiirka oo ilaa habeenkii aan soo degnay airportka joogay caawana jooga. aad iyo aad baad mahadsantahay safiir. waxaan aad ugu faraxsanahay
anoo marka horeba ku faani jiray Somaliland markaan joogo magaca Somaliland iyo dhulka Somaliland waxaa farxad gaar ah inaan caawa imaado halkan anigoo matalaya Somaliland heesta lafteeda ayaa meel taabatay way ragii sameeyay iyo meeshii lagu sameeyay halkan ka imaayay iyo waxdeeda sacabka u tuman waxaan hadiya jeer ku hawlanahay waaxda aan ka shaqeeyo dhaqanka liyaha waxa weeyaan san wadaniyada ugu habno ummadeena uga soo guro maqlaqad kaga soo guro naxliga iyo buulinka ay ku hayso qabyaalada ka dhaansan waxaan leeyahay Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato balad ka soo baxdo Somaliland ha noolaato waxaan idin sheegayaa hadda Hindiga Pakistaniga qof kasta afka Urduga ku hadla hadda dalkiisa soo qaadato Pakistan hadda wuxuu leeyahay Sindbad Hindiga saasoo kale hadda India taa wax qoonaya Sindbad innaga maxay noo diiday Somaliland marka la yaho Sindbad anolaato ambassador gudoomiyaha jaaliyadda SSUK aqoonyahanka iyo salaadiinta dhaqanka waxaan u salaamayaa aqoonyahanka caawa abtigay baan u salaamayaa Aidiid Xaaji Daahir oo cilmi ayaan u salaamayaa odayaashii waddanka dhisay Xaaji Daahir oo cilmi ayaa dhalay isaga u salaamayaa si gaar ah waxaan u salaamayaa hablaha barakaysan hooyooyinka walawad xagga dambe aad fadhiisiseen oo hay'adeen halka hore soo maraan waayo imika iyaga horeeya waayo inta yare dadku ku soo socdaba haween baa sida guud ahaantiin intii halka soo xaadirtay aad baan idinku mahadnaqayaa xafladda ayaa ku soo gabagabowday jawi farxadeed aynaawi cismaan ducaale TV-ga qaranka jamhuuriyadda Somaliland London